الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا ليال وحاينو كهدليني كتاب كأني أها متن الآجرومية وحاينو سوغارني درسيجي نسيديدات كتابك وحاينو كهدليني حروف الجر أما حرف يدا وحوص ديغو darsigeennii hore waxaynu ku soo ogaanay min iyo ilaa markii ay gelayaan al-asmaa ad-daahira. darsigeennan waxa aynu ku qaadanaynaa min oo la gelinayo al-ismu al-mudmar ama al-ismu ad-damiir. waxaynu soo ogaanay marka aynu ka hadlaynay aqsaamul ismi ismiga qaybihiisa marka aynu ka soo hadlaynay ismiga in saddex loo qaybinayo: الاسم الظاهر، الاسم المضمر، الاسم المبهم. سدحداس ايا مغا لو قيبناي. من ايا وحا انجلينينا الاسم المضمر وحا اينو سونيري الاسم المضمر وحا ليرادا مغا مسميه ستوسينايو بقرينة تكلم او خطاب او غيبة والروح يو اسكا هادلايو اما وحلا هادلايو ama wax maqan ee laga hadlayo. marka min marka aynu gelino al-asmaa al-mudmara minni oo kale minni aniga yaa waxoos dhigaya markaasi min ayaa waxoos dhigaydo yaa la hoos dhigayaa markaasi yaada ayaa la hoos dhigayaa minni ku jirta nuunta yarta ah nuunul wiqaayada hadda waxba ka hadli mayno. marka minni yaa waxoos dhigaya min ayaynu leenahay waxa la hoos dhigayana waa minni yaadaasi u dambayso yaadaasi ayaa la hoos dhigayaa. marka aynu fiirina yaadaasi waxa aad moodaa in la reebayo minni yaadaasi marka aynu fiirino waxa aad moodaa yaa reeban laakiin ma reebno waxaan leenahay min ayaa hoos dhigta yaadaani xagayna ka hoos dhigan tahay maxalku waa gudaha ayaa laga soo hoos dhigayaa markaasi kelimada yaa xarafa ee wax hoos dhigayo min yaa magaca oo ismi ah oo la hoos dhigayaa yaadan minni ku jirta yaadani ismi ma tahay waa ismi ismigaasi maxaa loo garanayaa al-ismu al-mudmar saa maxaa yeela waa wax iska hadlaya minni aniga carabtu musammuhu markuu iska hadlayo waxa ay u dejiyeen magacuu isaga hadlo magaca musammuhu uu isaga hadlayo yaa waxa la yiraahdaa al-ismu al-mudmar. see loo icraabayaa marka minni min xarfu jarrin waa xaraf waxhoos dhigo min ayaynu leenahay min xarfu jarrin walyaa'u ya'dan oo minni ku jirtana ضمير المتكلم روح iska hadlayo ضمير المتكلم متصل بارز ضميركani waa متصل بارز macnaa waa متصل waa ku la xiriirsaday يعني waxa uu la xiriirsaday caamilkiisa kii asaga shaqli lahaa ayuu la xiriirsaday متصل بعامله baarisun wuu muuqdaa marka yaadu way muuqataa ma qarsana waxaa jira damiir oo qarsan damiir oo muttasila oo mustatira ayaa jira marka walyaa'u damiiru lmutakallimi muttasilun baarizun mabniyun cala sukuun yaadaani waxa lagu dhisayo waa sukuunkaasi mabniyun cala sukuuni buu ku dhisan yahay mabniyun cala sukuuni في محل جر بمن جودهنا من أيا هوس دقيقة في محل جر بمن طبعا مركي لسمايو عامل أما فعل سو قدر الجار والمجرور بإيمانيسو لكن هذا وحبا فعل سمايمينو مني من حرف جر والياء حين ذكرنا مبني على السكون يا ذا مبني على السكون في محل جر بمن جودهنا من أياك هوس دقيسو marka adigu waxaad baranaysaa min in wax hoos dhigayso min in ay wax hoos dhigayso ayaad baranaysaa
waxaad baranaysaa yaadaasi minnii ka dambaysa in la hoos dhigay waxaad garanaysaa gudaha in laga hoos dhigay waxaad garanaysaa yaadaasi magac inay tahay magacaasina la yiraahdo damiir ama mudmar maxaa yeelay yaadu waa la isaga hadlayaa minnii aniga baa la dhahayaa minna annaga marka aynu niraahdo minna annaga waa wax iska hadlaya soo maaha minna annaga yaa wax hoos dhigaya min yaa la hoos dhigayaa naa ayaa la hoos dhigayaa alifta meesha u dambayda maxaa saaran naa waa mabniyun cala asukuuni oo marka minna marka aynu aragno waxa aan moodnaa naa meesha u dambaysa in la reebayo sidaa ayaynu moodnaa laakiin waxa ay leeyihiin naxwoolaydu sida aad malaynaysa ma ahane min waxbay hoos dhigtaa naadaanina waa ay hoos dhigan tahay gudaha ayayna ka hoos dhigan tahay maxalka ayay ka hoos dhigan tahay gudaha minna min xarfu jarrin min hadda waa xaraf wax hoos dhigo naa damiiru lmutakallimi muttasilun baarizun mabniyun cala asukuun meesha u dambayda fiiri alifta naa mabniyun cala asukuuni fii maxalli jarrin bimin gudahana min ayaa hoos dhigaydo fii maxalli jarrin bimin marka aad akhrisanaysa kutubtaada oo minnaa aad ku aragtid waxa aad leedahay naadani waa ay hoos dhigan tahay waana al-ismu lmudmar maxaa yeelay waa wax iska hadlayo minnaa annaga way hoos dhigan tahay alifta sukuunka saaran waxba la fiiri maayo waxaa leedahay min sooma gelin haa soo naadani magacii la hoos dhigi lahaa ma aha haa naadani waa ay hoos dhigan tahay gudaha ayayna ka hoos dhigan tahay min ayaana hoos dhigtay marka dhihi maysid naadani way reeban tahay ma dhihisid minnaa waxaa leedahay naadani waa ay hoos dhigan tahay min ayaa gashay minne magaca ay ku jirto waa la hoos dhigaa marka magaciyaa waxa uu ka hoos dhigan yahay gudaha iyo meel adiga aadan u jeedi karin sidaa darteeda waxaa lagaa doonayaa inaad dhihi kartid minnaa naada ku jirta way hoos dhigan tahay oo min ayaa hoos dhigtay waayahay minka ayaynu leenahay minka yaa wax hoos dhigaya min waa xarafkii wax hoos dhigi lahaa magacii la hoos dhigi lahaana waa kee waa kaafka minka ku jira kaafkaasi waxa aad mooddaa marka aad fiiriso in la kor dhigayo minka ka waxa aad mooddaa kaafkaasi in la kor dhigay laakiin kaafkaasi lama kor dhigine kaafkaasi annaga marka aan nahay naxwooley wuu noo hoos dhigan yahay kaafkaasi annaga gudaha ayuu nooga hoos dhigan yahay maxaa yeelay annagu waxa aan qabnaa min ayaa ku jirta waana magac minna magaca ay gasho waa la hoos dhigaa sidaa ayaynu qabnaa marka minka ma xarafkii wax hoos dhigi lahaa waa kee min magacii la hoos dhigana waa kee waa kaafkan xaggeena laga hoos dhigay gudaha ayuu ka hoos dhigmayaa bannaankiisana maxaa saaran minka waxa saaran fatxi ayaa saaran bannaanka minka waa mabniyun cala alfatxi marka waxa aynu leenahay minka marka aynu meel ku aragno xaraf wax hoos dhigaa yimid oo min ah magac la hoos dhigay ayaa jira oo kaafka ah markii lagu yidhaahda kaafkani wuu kor dhigan yahana waxa aad tiraahdaa war min magaca ay gasho waa la hoos dhigaa sidaa dheh minka marka kaafkaas wuu noo hoos dhigan yahay minka min xarfu jarrin min waa xaraf wax hoos dhigo waalkaafu damiiru lmukhaadabi kaafku waa damiiru lmukhaadab wiil baa lala hadlayaa damiiru lmukhaadab waxaa jira almukhaadab almukhaadaba almukhaadabayn almukhaadabiin almukhaadabaat wiil marka lala hadlaya almukhaadab gabar marka lala hadlayana almukhaadabati gabadhii lala hadlaya baa la yidhaahdaa laba markii lala hadlayana almukhaadabayn labadii lala hadlaya baa la yidhaahdaa rag markii lala hadlayana almukhaadabiin baa la yidhaahdaa dumar marka lala hadlayana almukhaadabaat baa la yidhaahdaa hadda marka yaa lala hadlayaa minka
wiil baa lala hadlayaa walkaafu damiiru lmukhaadabi muttasilun baarizun wuu muuqdaa waa muttasil kii asaga shaqali lahaa ayuu la xiriirsaday muttasilun bicaamilihi marka muttasilun baarizun mabniyun cala alfatxi ka soo ma aha fii maxalli jarrin bimin gudahana min ayaa hoos dhigayso marka minka ismigaas kaafka ah maxaa loo garanayaa waa damiir maxaa yeelay waxa lala hadlayo ama waxa iska hadlayo ama waxa maqanee laga hadlayo saddexdaas waxaa la yidhaahdaa al-ismu ad-damiir ama al-ismu almudmar marka hadda waxbaa lala hadlayaa wiil baa lala hadlayaa walkaafu damiiru lmukhaadabi muttasilun baarizun mabniyun cala alfatxi fii maxalli jarrin bimin minki xarafkii wax hoos dhigi lahaa waa kee waa min magacii la hoos dhigi lahaana waa kaafka minki ku jira kaafkaasi gudaha ayuu ka hoos dhigmayaa minki min xarfu jarrin waa xaraf wax hoos dhigo walkaafu damiiru lmukhaadabati gabar baa lala hadlayaa soo ma aha walkaafu damiiru lmukhaadab ayaynu nidhi wiilka gabadhana maxaan leenahay walkaafu damiiru lmukhaadabati muttasilun baarizun mabniyun cala alkasri minki mabniyun cala alkasri fii maxalli jarrin bimin gudahana wuu ka hoos dhigan yahayo min ayaa gudaha ka hoos dhigayso mabniyun cala alkasri waxaa loo jeedaa gabar kastee lala hadlayo waa in la yidhaahdaa ki xarakadaasuu ku dhisan yahay lama dhahaya gabar lala hadlaya minka la dhihi maaya minku gabadha marka lala hadlayo waxaa lagu dhisaa xarakada la yidhaha kasri minki walkaafu damiiru lmukhaadabati muttasilun baarizun mabniyun cala alkasri fii maxalli jarrin bimin ayaynu leenaha xarafka wax hoos dhigaya marka waa kee waa min magaca la hoos dhigayana waa kee waa kaafka minki kaafkaasi xaggee laga hoos dhigayaa gudaha laga hoos dhigayaa kaafkaasi ismiya magac ma yahay haa waa magaca la yidhahdo damiir ama mudmar ilee waa wax lala hadlayo waa gabar lala hadlayo minki adiga soo la dhihi maayo adiga xaggaada waa gabar markaasi lala hadlayo walkaafu damiiru lmukhaadabati muttasilun baarizun mabniyun cala alkasri fii maxalli jarrin bimin minkumaa markii laba lala hadlayo minkuma xarafka wax hoos dhigaya waa kee waa min magaca la hoos dhigayana waa kee waa kaafka magaca waa labaa lagula hadlaa kaafka xarakada saaran fiiri xarakada kaafka saaran waa dammi min ku xarakadee saaran addammi laakiin ma bannaana in la yidhaahdo kaafkani wuu godan yahay in la yidhaahdo ma bannaano markaa akhrinaysa minkumaa kaafkeeda ma dhehaysid kaafkani waa kaaf godan ma dhehaysid waxaad leedahay kaafkani waa magac kaafkani wuu hoos dhigan yahay waxa hoos dhigayana waa min ayaynu leenaha marka ha u qaadanin kaaf godan ha u malaynin ilaa waxaynu nidhi min magacyada ayay hoos dhigtaa marka magaci ka daba yimaada min siduu doona ha u shaqlanaado shaqalkiisa bannaanka waxba fiiri mayna annaga waxaan leenahay soo magac min ka daba dhacay ma aha wuu hoos dhigan yahay ayaan leenaha marka minkumaa min xarfu jarrin waa xaraf hoos dhigo walkaafu damiiru lmukhaadabayni labaa lagula hadlayaa kaafkan minkumaa muttasilun baarizun kaafka maxaa saaran marka kaafka fiiri minkumaa kaafkaasaa lagaa doonayaa inaad fiiriso waxaan leenahay mabniyun cala adammi fii maxalli jarrin bimin gudahana wuu ka hoos dhigan yahayo min ayaa hoos dhigtahay cala adammi fii maxalli jarrin bimin miimkan marka minkumaa ka dambeeyo iyo alifta labadaasi ismiga kama mid ah magaca la hoos dhigayo kama mid aha labadaasiba maxaa leenahay waalalifu waalmiimu xarfu cimaadin
waxbaa lagu tiiriyey maxaa yeelay min ku markii la yidhaahdo waxaa loo baahanayaa maadaama laba lala hadlayo laba in lala hadlaya waxna tusinayo waa alifta aliftana laguma dhawaaqi karo haddii aan fatxa la helin fatxadina meel la saaray u baahan tahay marka fatxadii miimka ayaa la saaray marka walmiimu xarfu cimaadin walalifu xarfun daalun cala atathniyah aliftuna waa xarafku tusinaya laba minkumaa marka miimti maxaa leenahay walmiimu xarfu cimaadin walalifu xarfun daalun cala atathniyah laakiin annaga magaceennu xagguu ku eg yahay kaafka minku kaafkaas ayuu magacu ku dhammaanaya marka kaafkaasi wuu hoos dhigan yahay mabniyun cala adammi fii maxalli jarrin bimin adigoo wax akhrinaya waxaa lagu yidhi minkumaa kaafkeeda see loo shaqlayaa qofki fiiriya kaafkaasi wuxuu leeyahay hadda minkumaa kaafkeedu wuu godan yahay ayuu leeyahay qofka aan naxwaha aqoon wuxuu leeyahay kaafkaasi waaba fudud yahay waa godan yahay ayuu leeyahay laakiin kaafkaasi ma godno ee kaafkaasi hee wuu hoos dhigan yahay ilee min ayaa gashay minna hee magacyada ayay hoos dhigtaa gudaha ayuu ka hoos dhigan yahay marka minkum yaa wax hoos dhigayo min yaana la hoos dhigayaa kaafka minkum ku jira soo ciraa marka minkum min xarfu jarrin walkaafu damiiru lmukhaadabiina kaafkan rag baa lagula hadlayaa walkaafu damiiru lmukhaadabiin markii wax lala hadlaya marna wiil baa lala hadlayaa mar gabar baa lala hadlayaa marna labaa lala hadlayaa marna rag marna dumar intaa ka badan lalama hadlo mar wiil lala hadlayo mar gabar lala hadlayo mar laba lala hadlayo mar rag lala hadlayo mar haween lala hadlayo walkaafu damiiru lmukhaadabiina rag baa lala hadlayaa markaan muttasilun baarizun mabniyun cala adammi minkum kaafkeeda fiiri marka mabniyun cala adammi fii maxalli jarrin bimin gudahana wuu ka hoos dhigan yaho min ayaa hoos dhigayso walmiimu calaamatu jamci dhukuur kaafkaan rag badan in lagula hadlayo miimtaana tusinayda marka walmiimu calaamatu jamci dhukuuri marka minkum markii lagu yidhahda kaafkeedu suu u shaqlan yahay waxaad leedahay kaafkan wuu hoos dhigan yahay min ayaa ku jirta minkunna min xarfu jarrin waa xarafa hoos dhigo walkaafu damiiru lmukhaadabaati markaan gabdhaa lala hadlayaa walkaafu damiiru lmukhaadabaati muttasilun baarizun mabniyun cala adammi fii maxalli jarrin bimin wannuunu calaamatu jamci niswa hadda nuuntu waxay ku tusinaysaa gabdho badan wannuunu calaamatu jamci niswa marka minkunna kaafkeeda see loo shaqlayaa kaafkaas minkunna ku jiro waa la hoos dhigayaa waa ismi la hoos dhigay min ayaana hoos dhigayso marka darsigeennii 8aad aynu kaga hadlaynay kitaabkeennii ahaa matnu laajuruumiya halkaas aynu ku simanaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu